بسم الله الرحمن الرحيم إلى ما هذا إسكاله ساكي وحن ربنا إن حوتي عم بحين شرني أو كسب سنة قبل كل ما شو مريو يوحيا ناقب صوينا سيدينه سنة الأولى نبرها بالشدة رنتي ألقى وحن نقوم هذا علينا دمان ميديها سيدا ونعكسن له وشرفت له قيمها لأنه رشقينيه وهذانا عيارته تبينيه سي ونعكسن أتبيني بالشدة ملك سو أي شوك تجارسينيه waxaan kaloo halkaan uga mahad celinayaa sahal keebal oo runtii waqti fiican gelisay runtii si wanaagsan oo mataqaana sports ku dhaxan tahay baraha bulshada meel kasta ay ku gaarsiinayso dadka adduunka meel kasta ay ku nool yihiin waxaan kaloo u mahad celinayaa durdur telecom iyadoo qayb weyn oo baaxad ka qaadatay tartankaas inuu furitaankiisa iyo inuu si hagardaamin noogu socdo shalay galab garoonka Miraawar waxa ka dhacday ciyaar aad iyo aad qiimo badan u leh waxa wada ciyaaray degmada Burtile waxa wada ciyaaray oo kulanka shalay wada ciyaaray Dongoroyo iyo Ayl baa wada ciyaaray runtii ciyaartaasi waxay ahayd ciyaar aad iyo aad qiimo u leh waxay soo bandhigeen kubad qiimihii lagu yaqaanay kulankaasna waxa kula xiiso badan guushu wuxuu Ilaahay raacsiiyay degmada Dongoroyo oo halkaas 3 dhibcood ku heshay galabta kulan weyn oo xamaasadiisa wata wuxuu ka dhici doona Miraawar waxa is weejihi doona degmada Burtile iyo degmada Garowe waa laba degmo oo fac weyn weeye runtii balaayarinta iyo dhalinyarada waxaanu sheeganay macallimiinta halkaan ugu mareynayna in ciyaarta ay noqoto mid si wanaagsan nagu dhamaata qof kastana meel kasta uu ka qaato waxa uu leeyahay oo xaq uu leeyahay macallinku waa inuu mataqaa wixii shuruuc iyo system oo markasta u sheegayo oo kala hadlayo bahda sportska balaayarinta waxaan rabnaa image kan bixinayno maadaama caasimadii aynu nahay inuu image qurux badan oo bulshada ku qanacdo oo looga daydo oo noqdo waxaan markasta ugu baaqayaa bulshada ku nool caasimadda inay soo daawadaan taageeraan muujiyaan image qurux badan si mataqaana loo arko in caasimaddu ay ka shidan tahay sportska oo aad iyo aadna looga xiisaynayo dhamaanteen halkaas ay noo balan insha Allah hadii Ilaahay idmo waana mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh